qadar sidee ugu fikirtay inaan cunugayga ka dheeraado adigana aan ku guursado wadan noloshan waa cajiib aniga adiga wax naga dhexeeyay xiriir jacayl oo muddo qaatay laakiin ugu dambeyd waxa aad guursatay nin kale midaasna aniga adiga kaagama hadlo maanta nolosha waxaa ina tustay fursad kale oo aan galgacaylkeena inta riya aan aragna ku rumayn karno laakiin adiga ayaa igu diiday midaas maya dunidaan qofka kaliya nolosheeda ku kalsoon tahay agtiisa inay ku noolaato waa adiga cunugayga waa nolosheeda hal subax la-aantii waagi iyo beriyey ma noolaan karo go-aanka adiga ayaa iskala hodan laakiin aniga waxaan kaa codsaday in saraha hore aan ku noolaano nolol farxad leh cunugaadana waa biis la noolaa laakiin intaas ayaa farxadeyda ahayd iguma aadan tixgelin waxaa tahay nolosheeda hooyo marnaba waxaasan ku fikirin waan ku jeclahay wiilkayga وأنا بعد إن بدل عن كل شيء قدر إنه قف حني لكن هذا كي يقول كده أنا ولا أنا وحتى قف ونكسر ولا شيء وحاول قلت أنا والقر أحسن وإن من السوق سوق aniga nolol qurxan ima qorna loo maleeyo isku day walba aan sameeyo waa iga fashilmay waxaa jira qof adiga aad ku jecel saaxiibka ku doonaa kuna faraxsan inuu nolosha kula wadaago laakiin qofkaas adiga ayaa fahmay
يا واي قفاس ما أنت يا لكل ناس أخف كاس ليبان صاحبتني ما دينا وحن كبدنا لها مجلسة خذها noloshan waxaa ugu nasiib qofka dareenkiisa qarsada laakiin midaas waxaan u samayn jiray mar walba si aysan kaaga dhumin farxaddaada haysatay laakiin haddii nasiibkaygu maanta ii suurtageliyay in aad ogaatay jacaylka aan kuu qabo maxaa khalad ah muxuu yahay dembiga aan sameeyey haddii wadnahaygu kalgacaylkaaga la'aantiis xanuun uu dareemayo waan ku jeclahay laga yaabo inaadan aqbalin guurka aan ku weydiistay laakiin waxaan jeclahay in aan ku siiyo nolol qurux badan weliba adiga iyo wiilkaaga haddii aad iga diidana waan ku jeclaan doonaa riyada nolosheedu ugu weyn waxaa leeyahay inaan nolosha la wadaago qof qiimo badan ii haayo laakiin agteyda ayuu ku noolaa aniguna meel kale ayaan ka raadinayay diyaar baan u ahay waana ballanqaadaa